سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته كلنتو عنا ونكسن داود يلي دل هنتين بمبال ولي بعد جوكتاني سي ولي بعد نو داونيسان كسو دواد جنال كارش كحيدك هدي ادكو عصوب تهاي ولا لو حاسين نحرس لك اقعد سنة يا انات سبسكريب اساتيد جنبال لكنا فرتيت لايكتن ونو ديرجلين ما تسنيد داودي السلام عليكم ولا لحق كحرن جنة الكارش كحدك ما انتو حنيفين حينا لسيئات عجيبة ان أباحن ان لو عبرقاتو لسدني وحي دحمرتي ويلي آبيه مالين مالمها كمتا يا ويلكي وحو كيمت مجالكا وحو نصو أركي قبر آديات قرح بضن رب قرح كمانيستي ويلكي أيو آبيس ويمد وحو نكيري آبو ما انتو حنصو أركي قبر آديات قرح بضن haddaba aabbo waxaan kaa doonayaa inaad gabadhaas ii raadisid ama aada ii guuriso. aabihii ayuu ku yidhaahday wiilkaygiiyo ma xuma itus gabadha aan soo arkee. wiilkii iyo aabihiis ayaa isa soo raacay waxayna soo aadeen suuqa wuxuuna tusay gabadhii wiilka. aabaha ayuu ka jawaabay, wiilkaygiiyo maasha allah gabadhan way qurux badan tahay, balse adi oo kale laguma talagelin, waxaa looga talagalay qof sideeda oo kale u mas-uula, marka ma guursan kartid, iska daa ayuu wiilkii aabihii ugu jawaabay. wiilku ayuu la yaabay aabihiisa damca uu galay, balse muran dheer kadib waxayna aadeen qof u kala garqaadaa. waxayna soo aadeen taliyaha degmada ama taliyaha magaalada. wuxuuna u weydiiyey taliyihii gabadha ay isku haystaan bal asigan in la tuso. wuxuuna codsaday in la tuso. gabadhii ayaa loo keenay, wuuna arkay. wuxuuna ugu jawaabay meeshii laga rabo labada qof inuu kala garqaado. wuxuuna yidhi labadiiba uma qalantaan, waxaa u qalma qof sideedoo kale sharaf leh, magaaladan taliya ka ah. wiilkii aabihii way la yaabeen. mar labaad waxaa qoort lisugu galay wiilkii iyo aabihii iyo taliyaha ciidanka ama taliyaha degmada. markii xigtay haddana saddexdii ayuu sidaa u murmaya. haddana waxaa la yidhi noo raadiyo qof kale noo garqaada. waxaa la aaday duqa degmada ama guddoomiyaha degmada. markii loo tagay guddoomiyaha degmada asna wuxuu codsaday in gabadhii loo keeno uu arko. mar allaala markuu arkay gabadhii wuxuuna ugu jawaabay saddexdii qof, haddaba idinka uma qalantaan gabadhan, waxaa u qalmaa qof sidayda oo kalaa, halkaan ka sii yar dareere ayuu ugu jawaabay. way la yaabeen raggii. markii saddexaad haddana waxaa qoortiis la galay afartii qof. kow wiilkii, labo aabihii iyo taliyaha ciidanka iyo duqa degmada. ayagoo sidii hoosha u taagan haddana waxay yidhaahdeen nakaxeeye qof noo kala garqaadan aan raadsane. waxayna aadeen boqorka wiilkiisa oo magaalada deganaa. waxaana la aaday boqorka wiilkiisii. markii agtiisa la tagay arrintii loo bandhigay ayuuna wuxuu codsaday asigana in loo keeno gabadhii uu arko. haddaba marku uu arkay wuxuuna ugu jawaabay afartiina uma qalantaan, gabadha waxaa u qalmaa nin sideedoo kale oo u sharaf leh. haddaba halkaan kasii yar dareera ayuuna ugu jawaabay. ayagoo intii sidii madax iskugu jiraa gabadhii ayay hadashay. waxayna tiri haddaba shantiina waa idin tartansiinayaa. shanta waxay kala yihiin wiilkii iyo aabihii iyo taliyaha ciidanka iyo duqa degmada iyo wiilka boqorka. gabadh u lix ah. gabadhii baa waxay ku tiri haddaba waa idin tartansiinayaa, qofkii tartanka ku guuleystaa ayaan guursan. hayibay ku yidhaahdeen, wayna ogolaadeen in la tartansiiyo. haddaba waxay tiri waan ordayaa, qof alaala qofkii isoo qabtaa ayaan guursan. waa ku qanacsan tihiin? waxayna ugu jawaabeen ha, waan ku qanacsannahay. haddaba way carartay, wayna ka daba carareen. ayagoo sida usii daba cararaya waxay ku hoobteen god weyn bay ku dhaceen oo shantii qofba. markay dhaaftay haddana ugu soo kor noqotay waxayna ku tiri ma i garanaysaan? waxayna ugu jawaabeen may.
laakiin waxaan u jeednaa gabar qurux badan inaad tahay. haddaba waxay ku tiri anigu waxaan ahay adduunyo idinkoo aanan gaarin ayaad dhimanaysaan, ilaa aad ka dhimataan ima gaaraysaan. walaalayaal qisadan waxaynu ku fahmaynaa in adduunyo aan israacsiin ilaahay subxaanahu watacaala laga baqo. adduunyada waxa weeyaan wax dhamaada. haddii aad ka faa'iidaystay qisadan waxaan kaaga codsanayaa inaad janalka rashka xidig aad subscribe saarto. like-tan waa noo muhiim. wixii ra'yigaana comment nooga reeb. waad ku mahadsan tahay daawadeed.